بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي هبون داوديال ملوبها جوجتان waxaad ku soo dhawaataan akhbaaradka caalamka kuwada ugu doorka roon ee waqtigan uu idin hayo janalka xogta qodobada aad ku daawan doontaan haddii ay barnaamij uu ka ahaado waxaa ka mid ah haweeney konton sano ka hor ogaatay cudurkan dunida saameynta ba'an ku yeeshay ee coronavirus. maalintii aan qorsheynayay inaan hadiyad siiyo ayaan meydkeeda si waaqiso laga diiwaan geliyay dhacdooyinka cajaa'ibka leh ee cudurkan coronavirus uu dunida ku soo kordhiyay. xaflad dhalasho isku bedeshay masiibo rabbaani ah. baaritaanka DNA oo la filayo inuu soo saaro sirta COVID-19. qodobadaas ayaad maqli doontaan haddii eeba uu raali ka ahaado. aqyaaray haddii aad nagu cusub tahay channelkan subscribe dheh, sidoo kale la sii wadaag asxaabtaada oo muuqaalkan sii faafi. aynu ku bilowna ee haweeneydii ugu horeysay ee ogaatay fayraska corona ee bini'aadamka ku dhaca ayaa waxay ahayd gabar uu dhalay nin darawal bas ah oo u dhashay dalka Ireland. gabadhan ayaa iskuul isaga tagtay iyada oo 16 sano jir ahayd. John Elmedi ayaa noqotay haweeney shaybaar ku ogaatay sawirada viruska, waxayna aad isugu mashquulisay ogaanshiyaha cudurkan safmareenka ah ee iminka caalamka ka jira. COVID-19 ayaa hadda ah virus, balse waa nooc ka mid ah coronavirus oo ay horey u shaaca uga qaaday Dr. Elmedi sanadii 1964, taasi oo ay ku ogaatay shaybaarka FT Thomas oo ku yaala magaalada London. haweeneydan oo ku takhasustay cudurrada viruska ah ee faafa waxay dhalatay bishii June sanadkii 1930, waxayna ku kortay meel u dhow Alexandria Park oo ku taala waqooyi bari ee magaalada Glasgow. iskuulka ayay isaga baxday, mana aysan lahayn waxbarasho aasaasi ah, balse waxay shaqo ka heshay shaybaar lagu magacaabo Glasgow Royal. markii dambe waxa ay u wareegtay magaalada London oo ay waxbarasho dheeraad ah ka sii heshay. waxa ay guursatay sanadku markuu ahaa 1954 nin u dhashay dalka Venezuela oo lagu magacaabi jiray Equus Elmedia oo farshaxanka sameyn jiray. cilmi baaridda hargabka. lamaanahan iyo gabadhooda yar waxay u wareegeen magaalada Toronto ee dalka Canada, waana halkaasi meesha ay ku soo bandhigeen xirfadeedii aadka u sareysay ee culumta shaybaarka, sida uu sheegay Giorgio Winter oo wax ka qora cilmiga caafimaadka. waxay soo bandhigeen qaabka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo sawirka fayraska loo adeegsan karo iyo shaybaaro casri ah. Winter ayaa BBC u sheegay in hibadeeda laga aqoonsaday dalka Britain sanadku markuu ahaa 1964 oo ay ku shaqeynaysay isbitaalka lagu magacaabo St Thomas oo ku yaala magaalada London, kaasi oo ah isbitaalka hadda lagula tacaalayo viruska COVID-19 laguna daweeyay ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson. waxay sidoo kale la shaqeynaysay Dr. David Trelail oo sameynayay cilmi baarid ku saabsan hargabka ama duriga. Dr. Elmeda ayaa sheegtay inay jiraan fayrasyo la mid ah hargabka. waxay farta ku fiiqday oo wax noqday fayraskii ugu horeeyay ee coronavirus. John Elmeda ayaa geeriyootay 2007 iyadoo ay da'deedu tahay 77 jir. 13 sano kadib geerideedii waxa ay helaysaa aqoonsi ku saabsan inay tahay qof ka shaqeeyay in la fahmo fayraska hadda ku faafay caalamka oo dhan. maalinkii aan qorsheynayay inaan hadiyad siiyo ayaan meydkeeda aasay. isbuucyadii ay soo daawanaysay maalinta hooyada oo sanad walba laga xuso dunida, gabadha 33 jirka ah ee lagu magacaabo Aya oo aan ahayn magaceeda dhabta ah waxay ku mashquulsaneed inay ka fikirto nooca ay noqon karto hadiyadda ay hooyadeed u geyn doonto maalintaasi, laakiin waxba kama aysan ogeyn inay isla maalintaasi meydkeeda aasi doonto. Aya hooyadeed waxay ka mid tahay 10kii qof ee ugu horeeyay ee Masar ugu geeriyooday xanuunka coronavirus. inkastoo dowladda Masar ay bartamihii bishii Febraayo ku dhawaaqday inuu gaaray cudurkan lagu magacaabo COVID, haddana isbuucii ugu horeeyay ee bishii March baa la dareemay in kiisaska isdaba joog ah ay ka noqdeen wadankaasi. ilaa iyo hadda in ka badan 2,000 oo qof ayuu Masar ku dhacay coronavirus, ugu yaraan 160 ruuxna way u geeriyoodeen caabuqan. waxaan rabaa inaan laabto guliyo laakiin ima suura galayso.
inkastoo hooyadeed ay muddo isbuuc ah iska liidatay ayaa marnaba kusoo dhicin inaysan xanuunkan ku dhici doonin. waxay ka waramaysaa markii geerideeda loo soo sheegay inay istaaga ka dhacday. Aya hooyadeed waxaa loo qaaday xarun karantiil oo ku taala isbitaalka degmada Helwan ee koonfurta magaalada Qaahira hal maalin ka hor geerideeda kadib markii laga helay bushiga COVID-19. haweeneydaas oo 69 jir ahayd waxay markii hore ku sugnay isbitaal si gaar ah loo leeyahay halkaasi oo horaantii looga waayay cudurkan coronavirus, balse maalmo kadib ayaa lagu celiyay baaritaanka sida ay sheegtay Aya. dhibaatada ayaa qabsatay kaliya ma ahayn inay hooyadeed ku dhimatay iyadoo aan macasalaameyn. isla maalintii ay geeriyootay waxaa la xiray dhammaan masaajidadii wadanka Masar, lamana ogolaan in meel qur ah lagu wada duceysto ama qof loogu duceeyo. sidaas daraadeed Aya waxay ku qasban tahay inay janaasada meydka hooyadeed kula dukato isbitaalka dhexdiisa. xitaa hawsha la xiriirta in meydka laga soo saaro isbitaalka waxay ku qaadatay waqti dheer kadib markii ay arrinkaasi suurageli weysay. ugu dambeyn aabaheed waa uu ka caafimaaday cudurkan wuxuuna guriga ku soo laabtay isbuucii la soo dhaafay. inkastoo Aya iyo walaalkeed aan laga helin coronavirus, haddana waxa ay ku jiraan iskaliyeelid. baaritaanka DNA oo la filayo in uu soo saaro sirta bushiga COVID-19. tijaabooyin dhaqan hidde-sidaha DNA oo la ururinayo ayaa loo adeegsanayaa in lagu ogaado sirta ka dambeysa in calaamadaha xanuun coronavirus ay aad kaga duwanaan karaan. khubarada ka shaqeeya kaydka dhigaga tijaabada caafimaad ee UK Biobank oo ay ku jiraan dhigaga laga qaaday in ka badan 500,000 oo qof oo xilqaamay iyo waliba faahfaahin ku saabsan xaaladooda caafimaad ayaa hadda ku howlan inay xog dhameystiran ka soo saaraan cudurkan COVID-19. waxaa la rajeynayaa in baaritaankan lagu ogaan doono sharaxaad ku aadan sababta ay dad badan oo cudurro hore qabin aad ula xanuunsanayaan coronavirus. in ka badan 15,000 oo saynisyahan oo caalamka ka kala socda ayaa adeegsan kara tijaabooyinka ku jira UK Biobank. Professor Rod Collins oo ah khabiir hogaaminaya baaritaankan ayaa sheegay in hawshan ay noqon doonto cilmi baaris taariikhi ah. waxaa laga yaabaa inaan si dhaqso ah u helno macluumaad aad iyo aad muhiim u ah ayuu yiri. qaar ka mid ah dadka uu ku dhacay coronavirus wax calaamado ah kama muuqdaan, saynisyahanaduna waxay isku dayayaan inay ogaadaan tirada celceliska ah ee dadkaasi. kuwa kalene waxa uu cudurku ugu dhacaa si sahlan, laakiin 5tii qof mid ka mid ah aad ayuu u xanuunsadaa cudurka halka tiro lagu qiyaasay eber 5% ay u dhinteen. UK Biobank waxa uu hayaa dhiig, kaadi iyo dhacaan candhuufta ah oo laga qaaday ilaa iyo 50,000 oo ruux oo qof oo si iskood ah ugu tabarucay, waxaana dhammaantood xaaladooda caafimaad dabagal lagu hayaa 10kii sano ee la soo dhaafay. kaydkan wuxuu horeyba gacan uga geystay in jawaabo loo helo su'aalo ka taagnaa cudurro ay ka mid yihiin kansarka, faaliga oo uu sababo dhiig karka iyo xanuuno ku dhaca maskaxda. cilmi baarayaasha ayaa awoodooda isugu geyn doona inay fahmaan jinsiga cudurka, waxayna raadin doonaan tallaalo lagu daaweyn kara. hal meel oo ay si aad ah diiradda u saari doonaan ayaa noqonayso ACE2 si ay u daraaseeyaan asalka uu ka soo abuurmay coronavirus, taasoo ka caawin doonta inay fahmaan qaabka uu shaqeynayo fayraska isagoo hawada raacaya. Professor Andrea Gana oo ka socda jaamacadda Helsinki ee wadanka Finland ayaa hogaaminaya dadaalayaal aad u ballaaran oo la isugu keenayo xogta ku saabsan asalka coronavirus iyadoo tijaabooyin laga qaadayo bukaanada uu haleelay caalamka oo dhan. khiyaari xogtii wararka waa inaga intaa ee caalamka. haddii aad ku cusubto channelkan xog baahiye fadlan subscribe saar, sidoo kale muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada. waad mahadsantahay.